xamaasadana hayso iyo farxadda midaan inta ku soo koobi kara maaha farxad gooniin oo tahay koobka soo u bilaabay ilaa hadda dhinacin dhulka lama dhigin waa inbitin ayaa ku qaadnay koobka Janna Daawud aniga koobka horta waa koob muhiim u ah dekada 23 sano kadib kooxda kubadda cagta dekada ayaa u dabaaldegtay xanashada koobka labaad ee ugu weyn Soomaaliya ee General Daawud Cabdulle Xirsi kadib markii ay kaga guuleysteen dhigooda Elman oo ay ku xifaaltameen halkan waa garoonka Engineer Risow ee degmada Cabdulcasiis waxa halkan ka dhacday dabaaldeg ay sameeyeen ciyaartoyda maamulka iyo taageerayaasha kadib markii ay hanteen koobka General Daawud Cabdulle Xirsi waxaan u mahadcelinaa dhammaan macallimiintii ciyaartoydii taageerayaashii waxaan si qaas ah ugu mahadcelinaa xiriirka kubadda cagta oo si nidaamsan tournamentigan u qabtay ilaahayna sama noogu dhameeyay farxad weyn oo la qiyaasi karin inoo tahay oo maxaa la yiraahdaa xamaasadana hayso iyo farxadda midaan inta ku soo koobi kara maaha waxay isoo xasuusisay waayidii hore ee ciyaarta garoomada la soo buuxi jiray garoonkii si fiican loo soo buuxiyay ummadii Soomaaliyeedna aad ay ugu faraxsan tahay inay maxaa la yiraahdaa saan oo kale ay arkaan marka waa aad ugu faraxsanahay ugu horeen waxa halkan ka hadlay xogayaha naadiga dekada Cabdullaahi Bashir Kuwataro isagoo sheegay inay dadaal dheer u soo galeen ku guuleysiga koobkan waxaan halkan ugu mahadcelinayaa maanta anagu ku dabaaldegayna shalay koobka meeshaan ku qaadnay Stadio Konis Engineer Risow waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeyso maamulka naadiga dekada macallimiinta ciyaartoyda maareeyaha dekada oo juhdi badan naadiga ku baxshay waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciyaartoyda aan soo qaadanay Salebaan Saanu ninkan lahay Cabdiraxmaan Amaanka Nuur Iraad dhamaantood sheekeye waa koobka ugu horeeyay ay qaadeen Nuur oo koob hore u soo qaaday saan jeclahay laakiin waa u mahadcelinayaa shaqadii aan soo qaadanay waa qabteen waan ku guuleysteen marka ilaahay yaa mahaddaas leh bahdiina saxaafadda qaasatan qaliilna aad ugu mahadcelinayaa si fiican noo soo shaqeeyay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xanashada koobkan taariikhiga ah iyagu kaga mahadceliyay maamulka kooxdeedu waa koox aad u weyn dekada waxaan kula guuleystay Real Super Cup koob kaliya dhimnaanay koobka Janna Daawud wahay waa koob ugu dambeeyay muddo 23 sano ugu dambeeyay 99 ayaa ugu dambeeyay koobkan waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii koobkan soo xirigelay inaan kamid noqdo oo aan kabtan ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mid kala hadin koobkan taariikh gooni u leeyahay waa koob aan muddo aan raadinay shalna ilaahay waa igu guulay alxamdulillah waa u qalanay inaan naqano toobiska hore inaan naqano goolhaya ugu fiican maalinka ugu fiican waxa naga fakata bis ciyaaryaanka ugu fiican koobka General Daawud waan u hambalyeynaa waxa qaatay nin ka tirsan naadiga Elman hambalyo ayaa leenaasan alxamdulillah horta ilaahay baad iska leh oo intaan soo gaarsiiyay wallahi wax badan ay iga dhigan tahay inaan koobkan ku guuleysano koobkan zaid ugu ooneed waxaan mar walba ku hamu weyneen inaan Janna Daawud ka qaadno waana qaadnay alxamdulillah Elman gurigeyga hore waay gurigeyga ilaa hadda waay Elman waxaan leeyahay igaraal naqda maxaa yeelay 90 daqiiqo mar hadda iska hor imaadaan waxa waay waji badan ku badaan dhinac walba marey u jeesaday marka waxaan leeyahay kooxdeeda insha Allah meel fiican ay imaadeen next time bataan ilaa insha Allah kooxda ayaa ku guuleysatay goolalinta macalinka ugu wanaagsan iyo sidoo kale golahayaha ugu wanaagsan iyo koobka waxaana Anwar Shakunda oo ku guuleystay goolalinta koobka General Daawud oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku wada guuleysto goolalinta iyo koobka General Daawud Cabdulle Xirsi alxamdulillah ilaahay mahadiis waay koobkan dadaal badan oo soo galnay juhud badan maamulka iyo ciyaartooyda iyo taageerayaasha iyo dhamaanteena waxa waaye macallimiinta iyo koobkan inaan ka dhaweeno sanadkan waa u baahneen ilaahayna uu nagu garabsiiyay alxamdulillah runtii kulan aad u weyn ah inta ka dhacay shaleeto ilaahayna guusha anagu na siiyay alxamdulillah dhaay karnaa koodii gool dhalin iyo macal koob inaan isku darsteedna waxa way farxad gaar ah ku noqonay ciyaartooyda tahay baahida koobka dekada leen ka baxay aan koob hore u soo qaaday laakiin dekada inaan wax u qaadaa rabay General Daawud ka waqti badan oo ka maqnaayay ani koob Elman kooban kula soo guuleystay Jeenyo kooban kula soo guuleystay oo kamid yihiin General Daawud ka Elman oo kooban kala soo guuleystay oo kamid yihiin Super Kooba oo dekada ka qaadnay Super Star League wallahi la soo guuleystay General Daawud kan waxa waa General Daawud inkastoo Jeenyo ugu dambeysay aadan ugu baahnaay ee teamko aad ugu baahnaayeen General Daawud ka runtii dhamaanteena waa ka wada dhabeynay dadaalka aan muujinay alxamdulillah dhaay karnaa koodii ugu dambeyn macalinka kooxdan Saciid Geesay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in muddo kadib oo kooxda u qaado koobka taariikhiga ee General Daawud Cabdulle Xirsi isagoo taageerayaasha kaga mahadceliyay sida wanaagsan ay u dhiirigeliyeen ciyaartooydooda inta u socday koobka General Daawud koobka horta waa koob muhiim u ah dekada iyo aniga especially laana aniga ciyaartoy inta ahay intaan macallin soo ahaybo
koob saan u weyn ma qaadan marka aniga personally waxay ii tahay wax achievement weyn ii tahay waan ku faraxsanahay naadiga inuu muddo kadib uu ku guuleystay kaas waxay ku tusaysaa tiimka shaqada oo soo qabtay iyo soo isugu duuban yahay iyo say diyaar u yihiin maartay inay ay go'an tahay inay koobka qaadaan si kastaba kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa 23 sano kadib ku guuleystay koobkan taariikhiga ah waxaana maamulka ay sheegeen in yoolkooda uu yahay inay tartamada kale ee soo socda ay u diyaar garoowaan si ay u qaadaan ciyaaraha soo socda maxamed xuseen qalinle garoonka Injineer Riso degmada Cabdul Aziz